xayaad market oo kamida suuqyada ugu waaweyn magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxay qiimo dhimis aad u ballaaran u sameysay shacabkeeda Soomaaliyeed. qiimo dhimista ayaa la geliyay dhammaan agabyada laga helo suuqyada xayaad nooc walba ay yihiin. qiimo dhimis ayaa lagu geliyay waxayna ka bilaabmaysaa 28 bisha 10aad oo aynu ku guda jirno iyadoo ku eg 7 bisha 11aad ee bishan hadda dhalan doonta. qiimo dhimistan ayaa waxa ay xayaad ugu talagaleen inay ka faa'iideystaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee macaamiisha ah ee ku xiran suuqyada xayaad. Axmed Xaaji Macquul oo ku hadlaya afka maamulka suuqyada xayaad ayaana inooga warbixinaya noocyada kala duwan ee qiimo dhimistan. sidaad ogtihiinba xayaad market mar walba waxay sameysaa qiimo dhimis ballaaran. qiimo dhimistan waxay ka bilaaban doontaa 28 bisha October ama 10aad 2024 waxayna ku ekaan doontaa bisha November ama 11aad 2024. waxaan ogon leenahay qiimo dhimistaas ballaaran inay bulshadeena gobolka Banaadir iyo nawaaxigiisa ay ka faa'iideystaan. mar walba waxaan jecel lahay shacabka in aan uga faa'iideyno agabyada ballaaran ee faraha badan ee suuqyadeena yaala si ay u helaan fursad ay uga gadan karaan waxyaabaha ay u baahan yihiin ee suuqyada laga helayo. waxyaabaha aan qiimo dhimista ku sameynay waxaa ka mid ah hilibka oo ah laf dhabarka ganacsiga Soomaaliya qaybihiisa kala duwan hadduu ahaan lahaa asagoo ari ah ama loo ama geel intaba qiimo dhimis ayaan ku sameynay. waxaa ka mid ah dharka haddii aan lahayn ragga iyo dumarka iyo caruurtaba intaba qiimo dhimis xoog leh ayaan gelinay. waxaa kaloo aan ka marnayn kabaha ay xirtaan ragga iyo dumarka iyo caruurtaba intaba ayagana qiimo dhimista qayb ay ka yihiin. waxaa ka mid ah maacuunta ayaa ka mid ah oo 20% aan hoos u dhignay. si lamida toyska agabka caruurta ay ku ciyaaraan qabiis kala duwan haday baawur ahaan lahayn baaskiil ahaan laha intaba qiimo dhimis ay ku jiraan. waxaa kaloo ka marnayn agabka nadaafadda si lamida yaanan ka tagin stationery agabka xafiisyada loo isticmaalo haday ahaan lahayn buugaagta iyo muqarraraadka wax walba oo stationery la halmaala intaba qiimo dhimis 20% ayaan gelinay. waxaan ka marnayn cosmeticska qaybihiisa kala duwan asagana qiimo dhimista ayuu qayb ka yahay. sidaa daraadeed waxaan rajaynaynaa bulshadeena ku dhaqan gobolka Banaadir iyo nawaaxigeeda inay ka faa'iideysan doonaan qiimo dhimistaas aan ku sameynay suuqyadeena afarta ah taasoo bilaabanayso 28 bisha 10aad kuna eg 7 bisha 11aad 2024 waa muddo ku siman 9 bari. marka waxaan leeyahay macaamiisheena ka faa'iideysi wacan waa mahadsantiin. bil waliba suuqyada xayaad oo dhan waxaa la geliyaa qiimo dhimis aad u ballaaran. ujeedada laga leeyahayna waxa ay tahay in looga faa'iideeyo dadka macaamiisha ah ee sida gaarka ugu xiran suuqyada xayaad dhammaan goob walba ay kaga yaalaan gobolka Banaadir. Safiya Ismaan Cabdulla, Dalsan TV, Muqdisho. abka dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahabalaas oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay. ku bixi ku iibso ku kaydso. Dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.